madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin oo ah madaxweynaha ugu waqtiga dheer ee Ruushka soo mara tan iyo Joseph Stalin ayaa waraysi maanta laga sii daayay warbaahinta dawladda Ruushka waxa uu ku shaaciyay inuu hadda si joogto ah uga fakarayo cid isaga xilka ka bedelaysa ee noqonaysa madaxweynaha ka dambeeya isagoo xaqiijinay jiraan siyaasiyiin dhowr ah oo duleeyay xilkan qabtaan dadweynahana kalsooni buuxda ku haysta. Putin oo hore u ahaan jiray Cornel Sirdon KGB-na ka tirsan ayaa si lama filaana xilka madaxweynaha u qabtay maalintii ugu dambeysay sanadka 1999 oo xilka madaxweynaha iska casilay madaxweynihii waqtigaas ee Boris Yeltsin waxaanu madaxweyne ahaa 1999 ilaa 2008 kadib isbedel lagu sameeyay sharciga waxa uu ra'iisul wasaare noqday ilaa sanadkii 2012 markii afti laga qaaday dadweynahana waxa uu bedelay sharciga doorashada oo uu awood u siinaysay inuu xilka madaxweynaha iska sharixi karo ilaa sanadka 2036. Putin oo hadda ah 72 jir ayaa yidhi mar la weydiiyay inuu ka fakariyo qofka xilka madaxweynaha uga dambeeya inta lagu jiray muuqaal laga sameeyay rubuc qarniga u buuxsantay intuu hogaaminaya Ruushka maadaama uu muddo 25 sano uu xilka hayay waxa uu sheegay inay jiraan musharaxiin dhowr ah haddana dadweynaha Ruushku ay yihiin kuwa go'aaminaya qofka isaga bedelaya. Dastuurka Ruushka waxa ku qoran haddii madaxweynuhu uu la kulmo xaalad uusan shaqada ku sii wadi karin inuu bedelayo ra'iisul wasaaraha markaa xilka haya habkaas oo ah sida uu Putin mar koobaad u awood ku noqday. Hadda jagada ra'iisul wasaaraha waxa haya dhaqaalayahanka Michel Mishustin looma badinayo inuu ku jiro liiska shakhsiyaadka Putin bedeli kara. Madaxweyne Putin 7 bishii Oktoobar ee sanadka 1952 ayuu ku dhashay magaalada Leningrad oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Ruushka oo hadda loo bixiyay Saint Petersburg. Putin wuxuu la dhashay oo kaliya 2 wiil iyaguna waxay dhinteen maalmo yar uun kadib markii uu dhashay taa oo ka dhigtay qof kaliya. Wuxuu ka soo jeedaa qoys sabool ah hooyadii waxay ahayd shaqaale warshadeed halka aabihiina uu ahaa askari ka tirsan ciidanka Ruushka. Putin wuxuu kulliyadda sharciga ka bartay jaamacadda Leningrad State University waxaana ka qalin jabiyay sanadka 1975 kadib waxa uu ku biiray hay'adii sirdoonka Sovietka ee KGB ee la asaasay 1954 halkaas uu ka shaqeynayay muddo 16 sano ah. Wuxuu ahaa sirdoon qaabilsan arrimaha dibadda iyada oo wadamo badan ka soo shaqeeyay ka hor inta uusan shaqada ka tagin dabayaaqadii sanadka 1991. wuxuu siyaasadda ku soo biiray sanadka 1996 sanad kadib isbedel ayaa ka dhacay aqalka madaxtooyada Ruushka oo xilka agaasima madaxtooyada waxa ka tagay Anatoly Kubais oo ahaa Yuhuudi Ruusha wuxuuna xilka ku wareejiyay Valentin Yumeshev oo ahaa saxafi rugcadaaya intii lagu jiray munaasabada xil wareejinta agaasimaha xilka wareejinaya Anatoly Kubais waxa uu sheegay Yumeshev inuu garanayo nin ka badan oo maamul ku xigeen wanaagsan u noqon kara oo uu la jeeday Putin. Kulan kadib wuxuu ka dhigtay ku xigeenkiisii sanadka 1997 markaa oo Putin uu gudaha u galay xarunta madaxtooyada. 3 sano kadibna isbedel kale ayaa dhacay oo madaxweynaha xilka hayay ee Boris Yeltsin ayaa isku diyaariyay si lama filaan inuu isku casilo inta aysan iscasilaadu dhicinna waxa uu ka fakeray dhowr qof oo bedeli kara kuma jirin Putin dadku xilliga ka fakeray ama 3 qof ee dooqa u ahaa madaxweyne Boris Yeltsin balse si kedisa hal mar waxa afkiisa soo qabtay magaca Putin cid uu kala tashanay qofka bedeli kara waxa uu hagaasimay madaxtooyada Valentin Yumeshev oo kamid ahaa shakhsiyaadka ugu dhow madaxweynaha isla markii magaca Putin uu maqlay Yumeshev waxa uu 2 mar ku celceliyay inuu yahay qofka ku haboon xilka madaxweynaha sababtoo ah wuxuu ahaa ku xigeenkiisa iyo nin uu ku sheegay qof hal abuur leh oo fikrado badan keeni kara marka ay socdaan doodaha shaqada goobtuna waxay ahayd halka lagu go'aaminay inuu Putin hogaamiyaha Ruushka noqdo wuxuuna xilka u qabtay si ku meel gaar ah markii uu iska casilay madaxweyne Boris Yeltsin waxa uu xigtay doorashadii uu qabtay sanadkii 2000 inuu ku soo baxay ilaa haddana wax hogaamiyaha Ruushka waxaana noqday mid ka bedelay magaca Ruushka oo ka dhigay dal awood leh waxaana lagu xasuustaa in sanadkii koobaad ee xilka uu qabtay 70% uu sare u kacay dhaqaalaha Ruushka waxaana bedelay qalabka ay ku howlgalayeen ciidamada Ruushka waqtiga taas oo maanta ka dhigtay militariga Ruushka mid awood badan kuna qalabaysan in ka badan 6,000 oo gumuc oo nukliyeer ah.